kalfadhigan si saba dhaqan ahaan wuxuu ahaa xaflad kaftana oo dadku dee iska kifaaxaan sidaad aragteen oo muusiga hadda aan dhegaysanaynay siyaasiyiintu markay hadlayaan inaysan serious ahayn oo haddee liscaluul xaaranayo oo laisqalbi xaaranayo oo wax walba laga hadlaayo oo ah caadi iska dhig xoogaa yar yaan rabaa inaan ka hadlo kalfadhigii hadda 4 bilood aan soo dhaafnay wixii aan ka baranay iyo hadda meeshaan joogno iyo meesha aan higsanayno waxaan higsanaynaa sanadkan inuu ilaahay nooga dhigo sanad wanaagsan oo khayr qaba inuu ilaahay nooga dhigo sanad aan ka shaqeyno dib u heshiisiinta ummadda Soomaaliyeed inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u dhis ah oo aan dalkeena dhisano inuu ilaahay nooga dhigo sanad dib u xoreyn ah oo aan dalkeena ka xoreyno qolooyinkan shayaadiinta ah oo al-shabaabka ah markaan leeyahay dib u heshiisiin waa wax ugu muhiimsan oo ummadeenna iyo shacabkeena ay naga sugayaan waxa ugu horeeya dib u heshiisiin dhexdeena horta inay ka bilaabato waxaan rabaa inaan idin sheego oo xaqiiqo ah aqalka sare iyo golaha shacabka waxa loo baahan yahay dib u heshiisiintooda inaan bilaawno hadduu ilaahay yiraahdo waxaan hayaa warqad aqalka sare soo direen oo ay joojiyeen wada shaqeynta golaha shacabka sidii maxaan ku yiraahdaa dawlad goboleedyadii ay shaqada nooga joojiyeen annaga marka hadda dhexdeena weeye weliba waxaan u galaynaa gudaheena wax alla wixii mugdi ah oo dhexdeena ku jira si aan ugu gudubno wax kasta oo ay kala qabaan oo dhibaato ah oo hore u dhacday inaan ka shaqeyno sidii isugu soo dhawaan lahaayeen sidii gacmaha isugu qabsan lahaayeen dib u heshiisiin waarta inaan ka dhex dhigno hadduu ilaahay yiraahdo meesha ka soo bilaabatay marka 4 bilood ka hor waxay ahayd markii kalfadhigan furmaayay oo aan ka hadlaynay inaan furno joint session labada aqalka sare iyo golaha shacabka inay lahaadaan joint session oo anigu aan ka qodbeeyo last minute habeenkii ugu dambeeyay yaa aqalka sare waxay yiraahdeen annaga golaha shacabka meel la fariisan mayno waxaan u yeeray gudoomiyaha maxamed mursal iyo maxaan ku yiraahdaa cabdi xaashi waa wada fariisiyay xaaladoodu waxay gaartay meel aad iyo aad u daran oo runtii maalintii ay ahayd inay wada fariistaan aysan wada fariisan taasna runtii waxaan ka baqaayay waxay ahayd oo loo baahan yahay haddaan mas'uuliyiin nahay inaan fiirino dareenka shacabkeena haddaan wada jirno shacabkeena waa wada jirayaan haddii aan kala maqannahayna shacabkeena waa kala maqanayaan markaasay ka soo bilaabatay xiriirka labada aqal marka in aan dib u heshiisiin u sameeyno hadduu ilaahay yiraahdo sanadkan waxay ku jirtaa barnaamijyadeena number 1 marka la fiiriyo kan ugu horeeya hadduu eebay yiraahdo waa dhab waxaan ku tuhumaynay xoogaa markaas naftigeena waa markii dawlad goboleedyadu yiraahdeen waxaan ka joojinay wada shaqeynta dawladda dhexe oo xoogaa aan lahayn dawladda dawlad goboleedyada iyo aqalka sare ama xiriir hoose ka dhaxeeyaan iyadoo ay saas tahay yaa waxaa noo yimid ergeygii qaramada midoobay oo isaga naftigiisu runtii aad iyo aad uga walwalsanaa xaaladaas kala taagnaanshaha ah oo aan u sharaxnay aan ku niri Soomaali haddaan nahay annagaa heshiina dhexdeenna intii rabtaan ugu qaadato ma ogolin inay cidna soo fargeliso inkastoo iyagu ay mar walba qabeen daraf saddexaad inuu soo galo annagana mar walba ku diidanayn maxaa yeelay waxaan ogahay intii rabta ha qaadato haddaan nahay Soomaali halka annagu nagu jiraa annagaana heshiinayna cid isku keen khasbaysa ma laha cid damaanad noo kala saxiixaysana ma laha hadday damaanad macno leedahay horaan ugu kala saxiixay welina dhibkii weli qaar ka mid waa taagan yahay marka waxay ku qorxoon tahay annaga dhexdeena inaan damaanad isku noqonno oo dhexdeena aan ka heshiino cid walbana aan u sheegno annaga iska leh hawlaheena annaga heshiinayna annaga waala ah taasaa keentay ninkaas odayga markaan si fiican ugu sharaxnay dhaqanka Soomaalida iyo waxaan higsanayno iyo waxaan doonayno waa tuu safar galay uu yiri Muqdisho Soomaaliya maaha Soomaaliyana Muqdisho maaha arrintaas arrin aan ka caroonay ahayd oo aan wanaagsanayn oo sii xoojinaysa
runtii differencega farqiga federaalka iyo dowlad goboleedyada. haddaba intaas waxaa ka dambeeya hadalkayaan kusoo gabagabeynaya taas intaas waa macluumaadkii guud iyo waxa ummadda ay naga sugayso oo ah annaga in nalaga sugaayo inaan dadkeenna isu keenno kow annagaan iska bilaabno dhexdeenna wax alla wixii farqiga oo nagu kala dhex jira inaan annaga dhexdeenna iska daaweyno iyadoo ay saas tahay yaa waxaa maqasheen wax la yidhahda mooshin oo qayb ka mid ah khilaafaadkan haysta mooshinkaasi wuxuu ahaa runtii mid xoogaa yar ummadda soomaaliyeed argagax geliyey annagoo dhannan runtii aan la yaabnay inkastoo hadda meel fiican aan taagannahay oo aan ka soo gudubnay oo siday anigu aan sheegayo ahayd annaga dhexdeena inaan ka heshiinayno wax walbaba oo dhexdeena yaalla kaftanka waa tanaa marka kaftanka meeshaana gelaysaa guddoomiyaha markuu qabtay yaan soo wacay guddoomiye waa kaftameennaa waxaan guddoomiye waxaan maqlay mooshin baa la qabtay see wax yihiin markaasuu yidhi waa ay hor yaallaan mooshinka waxaan ku yidhi see u egyahay wuxuu yidhi bal aan kugu soo celiyo warqadihii saas u rogay waa igu soo celiyo wuxuu yidhi nambarkaas weeye oo yaa ka dambeeya waxaa ka dambeeyu dad waalaha ah oo la yidhahda qabyo oo waxaan yidhi ma qabyadaan isla ogeyn waa qabyo waxaan ku yidhi bal fiiri qabyo waxaan ku ogeyn wax walba haaf haaf inay uga tagaane bal fiiri hadduu mooshinka dhan yahay in kale dib buu u fiiriyey wuxuu arkay saxiixiyo la saxiixay 2017 tuhunka la qabana uu yahay dhammaadka 2018 waxaan ku yidhi marka haddee see isu waafaqaysaa wuxuu yidhi waxay arkaayeen wax soo socda sanadka bacdi waxaan ku yidhi khalad kalma ku jiraa waa isla ognahay waxaa laga yaabaa qabyo badan ay meesha ku jirteen waa fiiriyey wuxuu yidhi saxiixa waxaa ka maqan dateskii oo waxaan ku yidhi see dateski qofku uu ku iloobi hadduu qofka seexay see ku iloobi waktiga uu seexay waxaan ku yidhi haye maxaa kaloo ku jira wuxuu yidhi dad kale oo waxaa jira oo xanuunsan oo dibadaha jira oo aan ka warqabin waxaan ku yidhi marka waa yahay guddoomiye maxay tahay waxaan see wax u jiraan motifku muxuu yahay maxaa laga dan leeyahay waxaan ila waaba sheegtay waa qabye wuxuu yidhi hore waxay u yidhaahdeen qabye ninkeedaa dhammaystira waxaan ku idhi waa yahay waa dhabi qabye ninkeedaa dhammaystiree taas 2016 soo ma ahayn wuxuu yidhi maya waa 2019 waayahay maxay rabaan marka ma weydiis waa weydiiyu yidhi waxay rabaan waxaa ka mid ah guddiga hanti soo celinta in lagu daro ay iyagu maamulaan inay ka shaqeeyaan isu soo dhowaanshaha shacabka iyo dowladda inay dhammaystir ku sameeyaan wax allah wixii heshiisyo hore u jiray in maxaan ku rahdaa kanaalkan sheegay ayaan dhawey oo webiga kasoo fatahayay in la furo oo beerta loo daayo waxay rabaan uu yidhi inay xoojiyaan ama ka shaqeeyaan xoojinta hufnaanta dhaqaalaha waxay rabaan uu yidhi in ay ka shaqeeyaan oo ay xoojiyaan mushaahar bixinta tan ugu dambaysa waxay rabaan uu yidhi inay sharafka ummadda Soomaaliyeed soo celiyaan waa mahadsantihiin wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu